السلام عليكم. tahriibka iyo diinta maxay diinta islaamku ka qabtaa tahriibka? Diinta islaamku waxa ay si cad u ilaalisay nafta bini'aadamka. Waxay ka digaysaa in qofka naftiisu geliyo khatar uu ka fogaan karo. Tahriibka khatarta ah oo lagu maro saxaraha, xabsiyada iyo badda waxa uu si toos ah uga hor imaanayaa mabda'a islaamka ee ilaalinta nafta. Quraanku wuxuu leeyahay ha isku tuurin gacmahaaga halaag. Taasi micnaheedu waa ha gelin naftaada khatar cad. Tahriibka badankiisu ma aha daruuri sharci islaamku ogol yahay maadaama nafta si ula kac ah halis loo gelinayo. Xoolo lagu bixinayo, wada aan ammaan ahayn, sharci darro, dulmi iyo xadgudub lagu yeelanayo. Islaamku wuxuu dhiirigelinayaa samirka marka uu duruuf adag jirto, shaqo iyo dadaal xalaal ah, qorsho iyo talo raadis, ilaalinta sharafta iyo nafta qofka. Haddii qofku ku jiro dhibaato dhab ah oo noloshiisu halis ku jirto, islaamku wuxuu ogolaan karaa haajiro ammaan ah oo sharci ah, balse ma ogola tahriib khatar ah oo aan dhammaad lahayn. Doorka culimada, waalidiinta iyo bulshadu waa in dhalinyarada lagu wacyigeliyaa aragtida saxda ah ee diinta, in la caddeeyo in khatar gelinta nafta aysan ahayn tawakkul, in la dhiirigeliyo wadooyin sharci ah iyo xalal badbaado leh. Ugu dambeyntii, islaamku ma ogola in rajo beel darteed nafta loo haligo. Noloshu waa ammaano eebba bixiya, waana waajib in la ilaaliyo. Hadaba wixii talo iyo tusaale ah commentiga noogu